سؤال شكوبات سائل كان حولي هاي شيخ وحاد عدا وزبن كان دم لغو شقيستا قف هانتيلا إياد وتغيسا وحاليدا إني وحولان كشقيستان وباهانا هاي عسان حقوق جوابي بوس سهل وانكسين بوس كمركا سوهيشد حولا إياد كوغانا عساتو فرابادان إياد كسو دينسينيسا حاليدا حولان إيار بان اسكيغا بحين أما وحيار إنا كليدا يا لغا يابا قف كساس كشقيسناي ayaa musiibo rabbaani u imaaday suuqo kale gubtay xoolihii way ku gubteen maadaama qofkaas tacadigiisa inuu ku imaadin arintaasi wax deen miyaa lagu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وحيابها أمدينا قارهان أمد الصوماليين lagu ammaanayo ay wanaagga ku leeyihiin wax badan baan xoogaha waxyaabaha diinta ay ku daba marsan yihiin taabanaynay waxaa ka mid ah isgarabqabadka faraha badan oo nooc walba leh masalada sheekha uu sheegay oo ah qofkan walaalka ah inaas u tagto tiraani oo xoolaan ku shaqaystaan rabaa asna uu ku yidhaah war waan kuwa ogolahay laakiin adiga inaas qof soo jeeda oo shaqaysanaya tahay calaamo i tusi dukaan furo oo diyaarsa kadibna anna xoolaan kuu gelinay waa arrin runtii ummadda lagu ammaanaya khayr badanna ah ilaahayna uu ku barakaynaya waxyaabaha ganacsigooda meel walba ku barakoobana ka mid ah shayga qardiga ahna ajar fara badanaa ku soo arooriy oo sadaqada kasii fara badan لأنه dadka dhan wax kuma wada sadaqaysan kartid laakiin dad badan baas ama hasin kartaa xoolo badan oo kuwaada markaas walaalkeen wuxuu weydiiyey xoolihii aan walaalkay ka soo qaaday oo in aan u celiyo ay ahayd oon ka soo amaahday hadday halaagsamaan ay musiiba rabbaani imaada xoolihii ma liigu leeyahay musiiba rabbaani hadday imaada xoolihii waa lagugu leeyahay xoolaha ammaano walaalkaa meesha dhigi ma aha xoolaha adaa ku shaqaysanaya oo ku intifaacaya oo faa'iidadooda iska lahay halaagoodana xoolaha waxaas adig faa'iidadooda ku qaadanaysay damaanadoodaas qaaday adigay damaanadaada galeen liannahu waxaan xali iyo mar aan hadlayna ka soo hadalnay xoolaha sidoodaba ribaxooda waxaad yeelan kartaa oos faa'iidada ka soo baxaysa aad adiga kuwaada noqon kartaa markay damaanadaada galaan marka hadda damaanadaadiiba ay soo galeen xoolahan xoolo adiga leedahay oo kala waye maadaama ay damaanadaadii soo galeen xoolahaas walaalka oo halaagsamay inkastoo masiibo rabbaani imaadi waxaan ku naqaanaa soomaalida dad wanaagsan inay yihiin oy maxaa la yidhaha wax badan isu cafiyaan arrimahaas oo kale markay imaadaan laakiin si kastaba xoolihii waa lagugu leeyahay adigaa soo qaadatay maxaa la yidhaha adaa ka faa'iidaysanaysay faa'iidadooda iyo ribixoodan adaa cunaysay damaanadoodana adiga korkaada waye waa damaanaysaa wixiis walaalkaa kuu dhaafo waa meesheeda laakiin adaa lagugu leeyahy baaraka allahu fiik haddii ammaano asaga meesha dhigtay ay ahaan lahayd oos adigana meel fiican u dhigtay damaano korkaada ma ahaateen laakiin xoolihii adigaa ku intifaacaysaa sidaa darteed damaanadooda adig korkaaga wey wax dadkii lahayba ay garanayn annaga si looga bixi maxaan ka garanaynaa qofka waxaasaa qofka lagu leeyahay seen u gudaa iyo waxbaa la gartay laakiin qofkii in lacag lagu leeyahay waa la ogyahay qadarkii lagu lahayna lama ogsoono waa macnaha waa caynkaasaan u fahmay kan kalena waa un sidii oo kale asagana xoola lagu leeyahay marka qadarkii lagu lahayna lama ogsoono ayaga hadday dhinteen labadiina waa dhinteen marka xoolihii waxay u soo herayeen oo yeelanaya dadkii dhaxalka lahay mid kastaba dadkii dhaxalkiisa lahay ayaa xoolihii yeelanaya marka maadaama arrinta ay sidaa noqotay in un ayagii ay isu imaadaan oo ay isa saamaxaan oo qof walba qofka kale wixii xaggiisa jira ad saamaxa waxaan ahayn oo la samayn karoon anaga garanayna ma leh
dadkan wax lagu leeyahay lama garanayo qofka wixii lagu leeyahay laga gudi karaa walidalik diinteenna markay nafaraysa qofka habeen kasta haddiiba wax lagu leeyahay xoolo lagu leeyahay inaas wasiyo qoro oo dardaaran qoro waa arrintaan oo kale yaa looga nabadgeli adiga diinta ma ogtahay islaamka mar walba waxay ku faraysaa sidaas ku badbaadi lahayd lafahaaga adduunkaaga iyo aakhiradaada wixii gabood fal oo adig kaa imaado oo se tacadisa marka natiijadeeda adig unbaa dusha saaran inkasta ooba biryahan dhibka jira uu yahay xoolihii ammaanada ahay oo dadka laga soo qaaday waxaaba loo maneeyey baqaniimo ma tahay mise ma ahayn walaalkaa xoolihiisa hadday xaggaaga soo maraan dad dayn lagu leeyahay oo dayntii la walwalsan oo dadkii say uga geyn lahayeen baa la arki jiray laakiin mushkilad hadda jirta xoolaha marba hadday gacantaada soo galaan waaba khaniimo adi xaggaaga soo martay qofku xisaabtamaya waaba iska yaryahayba war dhibaatadaas arrintaas ha la joojiya hana la dadaarmo oo wixiiba laguga leeyahay aan iska qorna si qofka loo ogaado ama markaati u yeel marka si wixii loo bixin kara laakiin haddayba dhacdi oo dadkii wax ay sameeyeen ay jireen oy tacdiyeen labadii qolo warasadaheed inay iscafiyaan oo qolo walba wixii xaggooda soo jiri ay un lilaahi iskugu warramaan oo haddana la iscafiya waxaan ahayn oon samayn karna annaga ma naqaana qofka wax lagu leeyaba aan la ogeen si loo bixinayo xoolihiisa ma naqaana baaraka allahu fiik طيب جزاك الله خيرا سائل كان حولي هي شيغو آيات قصة أروري نفي معناها إيمانك نفي جيسة إيمانك ومعناها ذاك لقى أنفية ما أصل كإيمانك مي آيات كس أنفينيين مسا إيمانك لما شتر كيسة waxaa fiicnaan laheyd qofkaas walaalkeena su-aalaha weydiinaya ayadaha inuu sheego akhriye liannahu nusuusta wax badan oy asalka anfisina waa jirtaa nusuustaan leeyahay ayada qur-aan ma lihi keligood waxyaaba oo naqsi ah keeni karana way jiraan adiladana ayada laisku fasiri oo naskan haddaad meeshan ka hadla in loo jeedan asalka iimaankiyaa la anfi in loo jeeda nusuus kale ayaa lagu fasiri karaa yani maalan يعني مثالا سوقادي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيس وحوي سباب المسلم فسوق وقتاله قف مسلمة إن لعاية وفاسق نمو قف مسلم إن عايشد هذا كفاسقو بي هذه إن هذا سقى وحكو كجوين بعض الملايين لكن هذه كفاسقو بي in lala dagaalamo qof muslimahna waa gaalnimo gaalnimada kufriga marka asagaa darajaad ah mid oo qofka xaradi ka bixinayo oo macnaha dhiiggiisana xalaal noqonaya xoolihiisa xalaal noqonayeen naar uu ku waarayana waa jira mid oo maaragtay loo jeeda nicmadii ilaahay buu ku kufri khalad buu galay diintiisa waa nusqaantay loola jeedana waa jirtaan hadda marka nabiga markuuna leeyahy waa qitaaluhu kufrin qof muslim oo lala dagaalamo qofkana aasan banaysanin qofka muslimka la dagaalankiisa oo inay xaaraan tahay uu ogsoon yahay xaradii baas ka baxi ma lihin maxaa jira liannahu nas kale ayaa ka reebay maalan ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa laba kooxood oo mu'miniin ah hadday dagaalamaan dhexdooda islaax ka sameeya ayagoo dagaalameen ayaa haddana mu'miniin ilaahay ku tilmaamaa soo ma arkaysa way dagaalameen haddana ilaahay wuxuu leeyahay laba kooxood oo mu'miniin haddaas dagaal dhex mara islaax ka sameeya waa walaalihiin macnaha ma arkaysaa marka qofkii muslimka ahay la dagaalankiisi waa macsiyo kabiire ah iimaankaaga meel xun buu ku dhacay haddaasan xalaashanayni way dabcan shayga macsiyada mar haddii la xalaashado oosbaleeda hebel inaan la dagaalamon xoolihiisa dhaca xalaal bay ii tahay ama reer hebel waa gaalnimo taas islaamkaas kaga baxa qofka islaamku kaga bixi laakiin hadday tahay arrinta inuu maaragtay khalad u arka haddana uu sameeya xaradaas ka baxi ma lihin iimaankii hadda waa ka beri noqday oo dhiiggiisaa bannaan xoolihiisaa bannaan maxaa la yidhaha naaraas ku waaraa ma lihin laakiin diintiisa baa
nusqaan aan caadi ahayn gashay nicmada ilaahayna waa ku kufri baan leenahay dagaalankaas dadkaas mu'miniinta dhexdooda maray arrimo badan oo caynkaasoo kalaa jira marka caraafka ninkii u imaada oo wixii aad sheega u rumeeya kufri inuu nabiga ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam caraafka maxaa weeye waa ninka waxyaabaha fiirfiiriya maaragtay ama xidigaha fiiriya ama faalka iyo waxaas qoro ama maaragtay maxaa la yidhaha kitaab gawlowga oo waxaan taabay iyo waxaan samey yidhaha ma taqaanaan balaayada sameeyaan kuwaas caraafiina la yidhaha nabiga sal alla alay slam xadiidkiisa waxaa weeye xataa axaadiisa qaar waxaa ku soo aroortay ninkii u imaado 40 biri salaad lagama aqbalayo in loo rumeeyana de waaba gaalnimo waxay sheegayeen waa arrimo uu nabiga ka digay calayhi الsalaatu wassalaam marka arrimo waxaa jiraan badan oy diinta kufri ku tilmaami aanna haddana dhehaynin qofka xaradii waa ka baxay oo dhiiggiisa xoolihiisa way bannaan yihiin aanan dhehaynin kufriga ay diinta ku sheegteen aan ka anfinaynin maalan nabiga xadiidkiisa waxaa weeye sal allahu alayh wasalam laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'min qofka markuu zanaysanayo ma zanaysta asagoo iimaan ku jiro saariqa tuugga markaas wax xadaya ma xada asagoos iimaan ku jiro midka khamrada cabaaya ma caba khamrada asagoos iimaan ku jiro haddaasan xalaashanaynin oo tuugnimada xalaal inay u taasan arkaynin oo zinada inay xalaal u taasan arkaynin oo khamrada cabideeda inay xalaal u taasan arkaynin ma dhehayna xaradaas ka baxay oo dhiiggiisaa bannaan ama maxaa la yidhaha xoolihiisaa bannaan ama naaraas ku waraa ma dhahayn maxaan u dhehaynin xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa jooga oo ah maxaa la yidhaha qofkii dhinta oo ummadaada ah asagoo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi qiraaya inuu jannada galayo markaasuu yidhi wain zanaa wain saraqa xataa haddaad zanaystay hoos waxaday haa buu yidhi wain zanaa wain saraqa waa ku celi 3 maraa looga celi marka nusuusta ayadaa isfasiri marka ma dhehayna nas kasta oo imaadiyo qofka iimaanka ka anfinaya iimaankii waa ka wada saarina ma dhehayna nusqaana loola jeedana ma dhehayna laakiin naska asaga hoos keentay baa isku xidhanya marka oo nusuusta qaar hadday ka bixinaysaa qofkii waa gaalnimo cad oo diintiisa ay maaragtay dhiiggiisa xalaal noqonaya xoolihiisa xalaal noqonaya inuu naar ku waarayo nusuusta qaarna kufri ay shayga ku tilmaamay laakiin nusqaan waaye ayadaa marka nusuusta laisku fasiri ee sida aas u sheegtay kulligeed laguma sii dayn kara hadalka jawaabta kulli laguma wada daynayo baaraka allah fiik طيب جزاك الله خيرا سؤال كلا وحوليه سائل كان شيقو صلاة تراويح دا إيو صلاة التهجد كا أو طبعا كدنبال الدكودة جماعنا اللي قد دكودة شرعي محوكا قبا سيقود صلاة التهجد كا جماعة إن اللي قد دكودة واحد دليل أو كسا أرورمية جرى بارك الله فيك tahajud muxuu yahay taraawiixna maxay tahay dabcan tahajudka qofka markii intii saaxda uu soo tooso salaad uu dukadaa la yidhaahaa tahajud wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak sidaas oo kale waxaan ogsoonnahay salaada taraawiixda nabiga ayaa sala allahu calayhi wasalam habeenada ka mid ah asagoo masjidkiisa ku dukanaya in badanna qiyaamu leylkuu dadka fari jiray weliba ramadaanka ayaas maaragtay ay dad la dukadeen jamaacay la dukadeen subaxdii waxaa laysu sheegay in xali dad ay jamaaco nabiga la dukadeen sala allahu calayhi wasalam haddana habeenkii dambe waa la soo batay masjidkii iyo xoogaha lagu soo batay waa la dukaday nabiga sal allahu alayh wasalam habeenkii kale dadkiiba masjidka waa qaadi weye nabiga markuu arkay asxaabtii sida ay u fara badan yihiin oy meesha ugu soo bateen uma soo bixin gurigiisa uu iska joogay habeenkii dhan ay nabiga sugaayeenoo qaar nabiga gurigiisa ay wax ku turtuurayeen oo qaar dhawaaq ay kor u qaadayeen inuu nabiga maqlo oo inuu nabiga hurday u malaynayay
nabigana sal alla alay slam wuxuu ka baqay haddii qiyaamu leylkan waa sunno sax laakiin noocan haddii loo sameeyey in lagu farad yeelo uu ka baqaa wax badan oo jecel yahaas ka tegi jiray nabiga sal alla alay wasalam in ummadda lagu waajibiyay asagoo ka baqaya ilaa waqtiga waxyiga soo degaya la joogay subaxdiibu dadka la hadlay calayhi salaatu wassalaam wuxuuna ku yidhi war dadow guryihiina ku dukada qofka salaadiisa waxa uu fadli badan tan uu gurigiisa ku dukanaya ilaa salaada maktuubada oo faradka maahin arrinta iyadoo intaan ku ekeed oo nabiga ilaahay sidii buu ku tagay calayhi salaatu wasalaam dadka guryahooda iskaga dukanayay ninkii rabana masjidku imaanay iskaga dukanayay laakiin jamaaco weyn oo masjidka lagu ogaay ma jirin waqtiga abuubakarna sidii bay ahayd markii la joogo waqtiga cumar sanadii 14 hijrada markay tahay sidii alimaam ibn jariir adabari sidii soo naqli kitaabkiisa taariikhda sanadii 14 markay tahay oo hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa amiir almu'miniin cumarna uu amiir yahay cumar markaas waa wax yar buu amiir yahay liannahu sanadii 13 miya meelahaas mas-uuliyaddiisa ay ahayd oo dadkiina ay koox koox masjidka ugu dukanayeen ayaa wuxuu sameeyey hal imaamu u yeelay haweenkana imaamu u yeelay dukiya raggina imaam buu u yeelay laakiin taraawiixda ay dukanayeen iyo salaadda ay dukanayeen salaadeenaan gaabanoon jusku ku dukanayna maayeen nin oo akhyaarta dadka wanaagsan oona masjidka laazima oona khayrka jecel aan u malaynaya ayaa wuxuu ugu yidhi war dadka salaaddii sunnada ahaydna lugahan ka daalnay salaaddii faradka ahaydna maxaa la yidhaahaa way fududaynayeen ine waxaan maa dadka la hadashid waaba sidaasaana sax ah leannahu salaadda faradka imaamiinta in la fududeeyaan waa la faray laakiin salaadda sunnada intaa rabta dheeray ninkii rabaa kula tukada ninkii rabana iska taga salafku waxay samaynayeen marka siday u dukanayeen oo u taagiyiin qaarkood ula ayay qaadanayeen oo ku taagsanayeen ilaa ay ka baqaan suxuurta inay ka tagto ha u malaynina yani juskan iyo anaga hadda 6 maqraan aqrinaa hadhowtana 6 maqran baa la aqrin cumar marka hal imaamu u yeelay dadkii raggii haweenkiina imaamu u yeelay mikrofoonnadan ma jirin oo iswada gaarayeen marka cumar asaga dadka lama dukan jirin magaalada asagoo amiir almu'miniin intuu meel fadhiistay waaridan sameey ma dhihi jirin asaa magaalada waaridayn jiray wixii jira iyo wixii dhib hoo jira magaaladu dhex wareegi jiray waaridihiisa qofka oo wiilashiisa khaadimyaalkiisa intuu wato magaalada dhex wareegi jiray guri kasta iyo wixii ka jiray uu kor maraya oo is ogaan wixii dhib hoo jira waxyaabaha ayaga hadda waxaan gaari karna ma ahin habeenada ka mid uu soo maray dadkii oo dukanayeen oo jamaacad dukanayeen oo imaamkii dukanayay oo dadka hal salaada ku jiraan marka wuxuu yidhi saa intuu fiiri buu yidhi nicmat albidca war bidcadan wanaag badanaa buu yidhi ya macnaa iska bidca lugawiya liannahu nabigaa sameeyey nabiga wuxuu sameeyey miyaa bidca noqonaya calayhi salaatu wasalaam bidca miyan yani bidca lugawiya maalan waxaad arki nin saxaabi oo la weydiiyo la yidhi qanuudka ka waran wuxuu yidhi rasuulka ilaahan ku daba dukaday abubakar cumaraan ku daba dukaday ayagoo samaynaya ma arkin waa muxdath buu yidhi ahlu cilmi badan waxay leeyihiin wax nabiga ilaahay sameey oo mar labaad sameey sidee baa loo dhihi karaa waa bidca waa run qanuudka nabiga ilaahay baa qanuuday sala allahu alayh wasalam sidaa darteed baa ahlulcilmi bilxadiid in dad ay qanuudaan salaad subax noqotiya iyo salaad kale noqotaaba bidca uma ayn arkin sunna ay u arkeen inay ka tagaanna bidca uma arkin sunna ay u arkeen leannahu nabigu waana qanuudi waana ka tagay waxyaabaha maanta dadkeenna ay isku dhibaan oo isku dhabarjibiyaan ay ka mid tahay haddii masjid laga qanuudayo dadkiisa ay qanuud laazimaan sunnada nebi maxamed bay sameeyeen sala allahu calayhi wasalam bidca ma ayn samaynin hadday qanuudkii laazimin oy ka tagaan sunnada haddana nebi maxamed ba ay sameeyeen calayhi salaatu wassalaam marka bidca waa iska shay lugawi ah hadalkaas markuu leeyahay cumar bidco wanaagsan wayuu yidhi haddana wuxuu ku daray
salaada ay ka hurdayeen oy soo toosayeen aan ka jeclahay midda ay hadda dukanayeen macnaha inay hurdi lahaayeen oy soo toosi lahaayeen oy dukadaan oy soo toosa hurdaan oy soo toosaan ayaan ka jeclahay buu yiri marka mar hore in la dukadana dhib ma lihin in xoogaa dad saaxdaan oy soo toosaan oy gadaal ka dukadaanna dhib ma lihin mid kastana in jamaaco lagu dukaday iyo inaan lagu dukanin midna dhib ma lihin salafkii baa sameeyeen laakiin salaadooda keliya waxaan inaan inku baraarujiyi doonayo waxa weeye inay salaadooda aada u dheereed ilaa ay ula qaataan ilaa ay ka baqaan saxuurta inay ka tagta oy habeenka salafka saa u dukun jireen ooyan ahayn hal saac inta la istaag hal saac ragcado ay ku jiri jireena laga yaabaa hal ragco inay ku jiri jireena laga yaabaa laakiin tabarteenna ayaan dukanaynaa in sha allahu tacaala dhib ma ahin ilaahayna inuuna dambi dhaafaan ilaahay ka rajaynaynaa jazaaka allahu khayran su-aasha nooga xig saa-iilkan wuxuu leeyahay shiikow qofta dumarka ah markay dukanaysa ama keligeed ha dukato ama bilcaamo kale hala dukatee inay aadaanta oo ay aqimta ma u bannaan tahay ama waa niyoonaysaa baaraka allah fiik aadaanka masaajidda iyo meelaha jamaacada ay ragga ku dukanayeen baa loo sunneeyey haweenka hadday imaadaan oo meelihii masaajidka ku dukadaan waa arrin wanaagsan dhib ma aha hadday guryahooda ku dukadaanaana ka fadli badan jamaaco gooni oo kaloo qabaan maba jirto marka ama masjidka ay ku dukanayeen oy dadka la dukanayeen ama guryahooda ay ku dukanayeen laakiin jamaaco khaas ah ooy samaynayeen haddayba dhacda inay un meel iskugu imaadeen ileen waa isu imaadi karaan ayagoo masalaad iskugu imaadin waa iskugu imaadi karaan gabdhaha joogaan waxyaaba fara badanaa jiraan markaasoo kale way aqiminayeen ayar salaadda ha aqimeena maxaa jira dee aqimitaanka salaadda in loo istaagi baa lagu tusin dadka oo loogu yeeri amaa aadaan oo aadaanka waa shicaar muslimiinta dhan loogu yeeraya taa ayaga ma khuseynaysa shicaarkaas ayaga ma lihin ragga ayaa maaragtay aadaanaya masaajiddaana laga aadaani iyo meelaha ay ragga iskugu imaanayeen ay imaadayeen ama gabdhahan meesha iskugu imaanaya hadday aadaanaan ragga uma imaanaya dadka dhan uma imaadi karaan marka ayaga waa aqiiminayeen waana dukanayeen hadday amar alle isu imaadaan baaraka allahu fiik microfon iyo waxaas ma jirta fuqahada qaara waxay qabaan bacd alculamaa mara qaar waxaa dhici ragga soo ma dhici karta wax qur-aan xifdisan in la weeyo dadka dukiyay taraawiix ay gabdho xafaadi joogaan ya waxaa dhici karta dhulka soomaalida ayba soo martay meelahan soomaalida goboladan mudug mar waxaa la sheegay dadka dhan oo ciidda joogeen wax dukiye la waayey oo gabar kilax la arkay wax dadka ciidda dukan kara sidaa yeeleen ayaga ay khusaysaa calaa ayati xaal waxay leeyihiin fuqahada qaar rag muxadisiin ah oo qarniga saddexaad bilowgiisa joogeen oo aimo ah ayaa waxay leeyihiin gabadha maadaama sidaa oo kale ay noqoto nin qaari la weeyey gabdhaha gadaal ay istaagayeen gabadha qur-aanka iidaa imaama safkeedii dambayna jirtaa qur-aankii bay akrinaysaa halkaas ayna ka sujuudaysa ay ka rukuuci halkaasaa looga dayan calaa ayati xaal naagaha imaam ma noqonayeen insha allahu tacaala ragga imaam uma noqonayeen walan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a marka gabdhaha aayar bay dukanayeen waana aqiminayeen ma la aadaanaya hadday guryahooda u dukadaanaana ku dukadaanaana ugu fadli badan baaraka allah fiik طيب جزاك الله خيرا su-aasha nooga xigta saa-iilkan wuxuu leeyahay shiqa waxaan ahay ganacsada dad iyaa wax iga gataan waxaa laga yaabaa dad qaar inay iga tagaan xoogaho balance ama baaqi ah oo marka saraf loo waayey dadkan waa ay fara badan yihiin wareeganaye inaan garan waaye yaa laga yaabaa ayagana ay dib igu soo laabanin xoolahan ay iga tageen maxaan ku samaynaa ikhwaani arrimahaas horta way fara badan yihiin gaar ahaan dadka beec mushtarka ku dhex jiro oo dukaamada iyo bacdle weelaha saasoo kale jooga sidaa darteed ba
waxaa waajib ah inay sadaqooyinka badiyaan ayagana had iyo jeer sadaqooyinka badiyaan oy ilaahay ka cabseenada badiyaan oy xoolahooda nadiifiyaan intii suuragal ah qaar baa maaragtay waxay soo naqliyaan attaajiru faajir waatujaar fujaar laakiin hadalkaas sax ma ahin hadalkaas sax ma ahin qofka taajirka ah oo dadka beec mushtarkooda ayagoo ku jiro wakhtiga ilaalinayeen oo salaada iyo jamaacada ilaalinayeen oo aadaanka ilaalinayeen waa kuwa ilaahay qur-aanka ku ammaanaya uu leeyahy rijaalun laa tulhiihim tijaaratun ayadihii cawgu uu sheekha noo akhrinayay tijaaratun walaa beycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaa lagama yaabo inay maaragtay tijaaradooda ay ka mashquulisa way tijaaraysanayeen dukaamo ay leeyihiin bacadla ay leeyihiin wax walba ay ka ganacsanayeen haddana waxaa la yidhahaa kama mashquulinaysa ilaahay ka cabsinadii marka hadda waxa ayan ayaga awoodeeda ahayn ilaahay uma qabsanaya qofkii lahay hadday maalin arkaan waa siinayeen haddayba og yihiin in wax lagu leeyahay oy dadki lahay weeyaan way sadaqaynayeen marka sadaqooyinkana ha badiyeena dadaalka kalena ha badiyeena baaraka allahu fiikum jazaaka allahu khayran saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekhow anigoo magaalada jooga geelna baadiye ii jooga geel zako gaari oo 3 neef oo ari ah zakadiisa ay tahay ayaan qof u kaashay waxaan dhahay zakada iga bixi 3 neef oo ari ah macna arigan asaa iska leh qofkii wax loo dirsaday wuxuu sameeyay 1 neef aska bixiyay neef labada kalena ma bixinin xoolahan haray labada neef ma aniga ligu leeyahay xoolaha leh mase qofkii aan u kaasho xaba aan qabanin zakada haddaan la bixin adaa lagu leeyahay adiga waajibka ku saaran waa zakadii ilaahay baa kugu waajibay farad ilaahay ku saari weeye qofkiis u dirtay haddaas kaa gudi weeye adi kaama dhacayo waajibka waa lagugu leeyahay adaa lagaa rabaa saas iskaga hubsan laheyd waajibka adiga aa laguga lahay inaad iska bixisid oo weliba meel saxa ma ku baxday aada ogaatid laakiin hebel aan u diroon faree aniga maxaa liigu leeyahay wax jira maaha waajibka xoolaha adigaas ilaahay kusiiyaas kugu nicmeeyey waajibkana ilaahay adigaas ku saaray adigaa lagaa doonay inaad xoolihii aad hubsatid in la bixi haddaase bixin weeye waxaa weeye adigaa lagugu leeyahay xoolihii inaad bixisid waa iska bixinaysaa baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayran sheekhow waxaan ku nadaray in aan sooma 100 maalmood 100 maalmood waxaan soomayay isniin kasta iyo khamiis waqti waa dheeraaday waxaan kala garan waayay inay 100kii dhamaatay iyo inay weli wax liigu leeyahay maxaan sameeyaa waa soomaysaa ilaa aad ka hubsato inay dhamaatay طيب جزاك الله خيرا سؤال نو xig saalkan wuxuu leeyahay shaqo waxa dhacda dadka markii masaajidka la imaada kabaha ka xadaan markay kabaha ka xadaan qaarkood waxa laga yaabaa ku qaldameynay waxay noqoto aday kaba kale oo dhamaad oo kuwaada ka liita ayaa meesha lagu dhigay kabahan ma qaadani karaa oo bedelkii kabayd ma qaadani karaa haddaas hubta kabahaada ninkii qaatay inuu yahay ninka kabahan ka tagay waa qaadan kartaa haddaad hubsata ood yaqiin u qabtid ninka kabahan ka tagay kii kabahaaga qaatay inuu yahay laakiin adiga hubaal ma u qabtaa arrintayda ya marka haddaas asaga tuug noqday adigana tuug kale ha noqonin sax hadday xoolahaaga ninkii qaatay inuu yahay haddaas hubi laheed waa qaadan laheed laakiin maadaama aasan hubin ilaahay ka cabsay wixii xisaab asaga ay la jiraani islaamka kabahooda ka qaadino yaanan adigana xisaab yaay laba khasaar iskugu kaa dhicin yaay laba khasaara xoolahaadii oo maqan iyo xisaab aakhir oo ku qabsata soo saas ma ahayn xoolahaadina way kaa tageen waa kaa maqan yihiin xisaab aakharana yay ku qabsanin iska tahay ninkan xoolihiisa xoolahan meesha looga tagay marka laakiin hadday inay kuwiisi yihiin la hubi lahaa waad qaadan kale laheed shaki ma lihin dhibna ma ahin taas ayadaa marka yahay
shiiqow nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu yidhi mu'adinka markaas aadaanaya si u dhahaya dhaha xay cala salaa iyo cala falaax ma ogi markuu gaara macnaha aadaanka dhammaadkiisa laa ilaaha ila allah uu gaara muxamedun rasuulullahi ma ku dabadari karnaa mase waa bidca baarak allahu fiik waxaa fiican waxyaabaha sunnada ku soo aroortay ajarka ugu wanaagsan iyo jidka ugu wanaagsan waa intii sunnada ku soo aroortay inaad tidhaha markuu allahu akbar yidhaha inaad intaad tidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu yidhahana sidaa aad tidhaha ashhadu anna maxamedan rasuulullahi sidaas oo kale xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax waxaa weeye kasaleen waa inta hore dikri bay ahayd laakiin tan waa naada salaada u kaaliya liibaanta u kaaliya lisleeyahy marka jawaabta uu nabiga taas lagu ajiibayo waxaa waaye laa xawla walaa quwata ila billah inaad tira awood ma lihi inuu ilaahay ii kaalmeeyey ma ogi markuu laa ilaaha ila allah markuu yidhah inaad adigana tidhaa wuxuuna faray faquluu mila maa yaquulu lmu'adin marka laa ilaaha ila allah meesha lagu fari taas weye adkaar badan oos nabiga ka dabageyna waa jirtaa in la yidhaah muxamedun rasuulullaahi uu ku daray qofka bidcad sameeye ma lihin laakiin adkaartaas sidii lagu faray inaas ula imaadaa wanaagsan marka inuu yidhaah laa ilaaha ila allah waxaa weeye waa sida asalka ah ilaa nabigu wuxuunu yidhi faquluu mila maa yaquulu lmu'adin laakiin dacooyinka ka dambeeya waxaa ka mid ah in nabiga lagu salinayo sal allahu alay wasalam oo loo dacoynaya oo risaaladiisana la qirayo allahuma raba hadihi اdacwati الtaama wالsalaaة اlqaa'imati aati muxamada alwasiilaةa wاlfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadta iyo maxaa la yidhaha raditu biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimuxamadi salى اllahu alayhi wasalam nabiya warasuula ama rasuula wanabiyan marka waad arkaysaa markii la aadaano adkaarta noola jideey nabiga oo la sheego oo lagu saliyaa ka mid ah laakiin wixii lafdiga sidaa daha la yidhi sidiis inaad ula imaadaa wanaagsan laakiin muxamedun rasuulullah haddaas ku darta maray bidco noqonaysa ma jirta alfaada ilaali maalan meeshaan ilaahay ku magacaabaa lagu leeyahy waa inaas tasmiyadii magacaabitaanka la imaada maalan cunada markaas cuni in ilaahay magaciisa lagu bilaaba ayaa noola sheegay bismi illaahi baad leedahay xaajo kalaas qabsani waxbaad samayni masjidkaas ka bixi bismi illaahi baas leedahay gurigaas ka bixi bismi illaahi baas leedahay waa soo geli adkaarta lagu faray sidii lagu faray ula imaaw waxba kaloo ziyaado badan ha ku darin bismi illahi raxmaan raxiim iyadoo sax tahay haddana intii lagu faray inaas la imaado ayaa kasii wanaagsan baarak allahu fiik طيب جزاك الله خيرا سؤالنا واحد سائل كان حولي هي يا شيخو tobanka dambe oo ramadaanka waxaa la sheegay dad in naarta laga xureynaya dadka naarta laga xureynaya ma dadkii hore naarta ugu sii juriya mase waa dad kale oo weli aan dhammaan oo naar gelin allahu almustacaan ikhwaani dadka naarta laga xureynaya oo noola sheegay waa dad nool oo caasiyaal ahay oo camalka xunoy sameeyeen askeenaya in naar la geeyo ayaas ilaahay iska cafinaya subxaana wa tacaala ma ismaqalnay dad caasiyaal ah oo nool oo caasiyaal ahaayeen oo camalkoodii sababtiis inay naar ku galaan muti ma ismaqalnay camalkii ay sameeyeen xumaantiisii bay muteen inay naar ku galaan ayaas ilaahay iska cafinaya subxaana wa tacaala fadligiisa iyo maanimahan iyo khayrka askeena ayaas ilaahay ku cafinaya subxaana wa tacaala arrintaas way arrinta laga hadlaya ilaahay tawfiiqaana siiyey جزاك الله خيرا إن شاء الله سؤاله